بسم الله الرحمن الرحيم وعن داوديال كسو دوادا شريف شو قيبتن waxaan idinku wada wadaagi doonaa sida Turkigu ugu hadlay habka difaaca cirka ah ee uu horaan si weyn social media u qabsaday in Soomaaliya loogu deeqay iyo waliba sidoo kale hadalka culus ee waqtigan ka imaaday markaasi dalkaasi Turkiga muxuu ahaa difaaca hawada S-400 oo markaasi lagu wareejiyay dalka Soomaaliya ma jirtaa waqtigan xiisad kale ka dhaxaloosmi karto Soomaaliya iyo Turkiga iyadoo horaan aan ognahay in maalmihii ugu dambeeyay si weyn u haystay baraha bulshada sawirka ama muuqaalka halkan idin kaga muuqdo oo ah in markaasi Turkigu ku wareejiyay Soomaaliya laakiin Turkiga qoraal ka soo baxay ayaa lagu sheegay in aanan waxba ka jirin warka isaga ah yaase ka dambeeyay in social media la keeno ama dowlad tuskaasi Soomaaliya waqtigan in hawada loo geliyo waan isla eegi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa bariga dhexe waxyaabaha ka soo kordhay Iran waxa laga warinayaa waqtigan inay diidan tahay gabiyahan wadahadaladii la qorsheynayay inay markaas ay u wada fariistaan sidoo kale waxa la tilmaamay Mareykanku 12 maalmood ayuu u qabtay waxa la wadaa inuu markaas isan dhankiisa weerar uu ku qaadi doono mana jirto laakiin ilaa hadda wax cad oo banaanka imaaday waxaan sidoo kale markaas qayb ka noqon doono qubanaheena haddii raalli uu ka noqdo in kastoo diiradda aan ku saari doono doorka warbaahinta ee Turkiga iyo daawacadeeda ku aada waqtigan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga sida uga hadashay S-400 loo yaqaano difaaca cirka waliba gantaalada kuwada ugu waaweyn ayaan inta badan diiradda ku saari doonaa iyo waxyaabo kale noo soo kordha saaxiibayaal idinkana noo cimaamada channelka subscribe saara like-tan saaxiibada hore noo joogo meel fog ayayna gaarsinaysaa inaga karayna marka la soo dhawaada kuna soo dhawaada Shariif Show sida ay baahisay warbaahinta ee Calcio Sports oo markaasi xiganaysa wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ama dawladda Turkiga ayaana si adag markaasi u beenisay warar sheegaya nidaamka difaaca hawada ee S-400 lagu wareejiyay markaasi dalka Soomaaliya wasaaraddu waxay markaasi cadeysay in aysan jirin wax qorshe ah oo markaasi gantaaladaasi loogu geynayo Soomaaliya iyadoo markaasi xustay in qalab markaasi loo soo iibsaday baahinta gaarka ah waliba sidoo kale ciidamada qalabka sida Turkiga xilli markaasi ay ku jiraan xaaladda diyaar garowga buuxdo oo markaasi lagu ilaalinayo amniga qarankooda waxa sidoo kale inta badan warbaahinadu ay aad u daabaceen qoraalkan oo markaasi lagu daabacay Calcio Sports warbaahin la yiraahdo ayaan markaasi lagu sheegay in mas'uuliyiinta Turkigu ay ugu digeen dadweynaha inay markaasi rumaystaan wararka markaasi la isla dhaxmarayo ee markaasi ka imaanaya isha aan rasmiga ahayn maadaama marar badan markaasi horay ay u jireen ama ay u markaasi horay u jireen sheegashooyin noocan oo kale ah oo ku saabsan nidaamka S-400 si kastaba ha ahaatee warku waa la beeniyay oo waliba hadda warbaahintu waxay xaqiijinaysaa in Turkigu uusan sii wadin ama iskaashiga ee dhanka difaaca amniga uu markaasi la leeyahay Soomaaliya uusan geenin taasoo markaasi imaanayso ama ay ku imaan karto dhismaha ciidanka ee markaasi la dagaalami doono argagixisada ilaa ay waliba ilaalinta kheyraadka badda ee lulay taasina waxay imaan kartaa waqtiga Turkigu uu qorsheeyo inuu markaasi gabiyahan uu ka bilaabo halkaasi dhinaca kale Iran wadahadaladii u dhaxeeyay gabiyahanba waa la soo afjaray oo waa la isku afgaran kari waayay waxay go'aan ay ku gaartay in weerar kasta oo Mareykanku uu la imaan karo ay diyaar u tahay inay iska difaacdo taasi oo lagu saleynayo waqtigan in gabiyahanba marnaba aysan u dhigin nuglaan doonin iyadoo wadahadaladii in muddo laga dhursugay dhankoodu ay u muuqato waqtigan in gabiyahan markaas lugta ay ku wada dhufteen Mareykanku talaabo culus ayaa laga yaabaa isaguna inuu qaado saacadii ugu dambeeyay maqaalo iyo qoraalo kala duwan ayaa la isku idaarsanayay warbaahinada Al Jazeera iyo waliba sidoo kale CNN qaybo badan oo ka mid ah warbaahinada ee si weyn wargeysida lagu kala daabacay mana jirto ilaa hadda talaabo culus ay qaadeen laakiin waa laga dhursugayaa toddobaadada soo aadanayana mar kale la filayaa in kulankooda caadiga ah ay yeelan doonaan wixii ka soo kordha qubanayaashan dambe ku qaada ligdona saaxiibada lidkan cimaamada nagu tuuro channelka subscribe noo saar saaxiibada hore noo joogo muuqaalka like noo saar like saaxiib far badan ayna tusaysaa mahadsanidin